munaasabad loogu dabaaldegay sanad guuradii 54 ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka cirka Soomaaliyeed waxa ka soo qayb galay taliska ciidanka cirka Soomaaliyeed saraakiil xigeeno dabley kuwaas oo u qaybsama farsamo yaqaano duuliyaal badmaaxaal aqoon durugsan u leh howlaha ciidanka cirka Soomaaliyeed Maxamuud Sheekh Dabla Beelood ayaa ka sheekay waxqabadka iyo taariikhda kala duwan ee uu soo maray ciidanka cirka Soomaaliyeed ragii lagu bilaabay iyo duuliyaashii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed kuwii ay ahaayeen dagaaladii ay ka qayb qaateen daadgurantii dad iyo duunyo ee abaartii daba dheer
safarada madaxda Afrika ay aadi jireen sida shirarka wadamada Afrika oo iyagu aan duuliye lahayn ugu safri jireen taasi oo lagu xaman jiray Soomaalidu diyaaradaha iyada ayaa duuliye ka ah marka waxaan leeyahay ciidanka cirka Soomaaliyeed waxaan idinku hambalyeynaa sanad guuradiini konton iyo afaraad sanadkiisna waxaan Ilaahay ka rajaynayaa bash barwaaqo iyo reen in Ilaahay nagu wada gaarsiiyo idinkana waxaan idin leeyahay ku ciida idinkiyo xaasaskiina iyo saraakiishiina saraakiil xigeenka sareeyaashiina dableydina dhamaanta waxaan idin hambaleynayaa waxaan leeyahay ciid wanaagsan billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi وصان أنا وجهي هرمر كم مغرب سنة كلا إني متكسي هرمر سنة نقطة أنا إلى إذا كسر رجيني إنه ماشي الوجود بعد جيو دوش إذا أنا كارك دونه إذا ما يبتوها الديار ده إذا كعك الصوماليات ود بعد جالس كذا رجليه أنت دونا بها هذين وما سنتين مكان وحين لهم بليو والسلام عليكم ورحمة الله. مدن وزير مدن يال ما توكله شنية طبعا كيف فبراير كنت سجال بقول يلهدكي وهاي هيد مالين إذا كعرك حسوستي سكوت الله وأنا كجوي دوني مركي شن دولية وإذا كعرك أولها مركا أفر كمدة أي دلك قصة ولا بتاع وهاي مالين تا أنا هدا أود بالدقيني إسلام مالين تا وهي تاريخ ده آدي قرب حسنت هاي ومالين تيجوه الرئيسي oo duuliyayaal iyo farsamo yaqaan Soomaaliyeed ay diyaarad laba motor leh ay ku duulaan hawada Soomaaliya ku dhaxmaraan isla maalintaas ayay ahayd duuliyayaashii maalinta joogay Allah u naxariistay taliyii uu horeeyo ciidanka cirka Axmed Sheekh Macow taliyii ku xigay Allah u naxariistay sareeye guuto Ali Mataan Xaashi Ali Daama Ali Maxamuud Cabdullaahi Cilmi ayaan kala ka tagay iyo raggaas ayay ahaayeen raggii waaga duuliyayaasha ahaa afartii markaas soo noqotay waxay ahaayeen Ali Mataan Xaashi Maxamuud Cabdullaahi Cilmi iyo Ali Daama Ali intaas ayay ahaayeen waxaa kaloo wadanka markaa ku sugnaa oo ayaga ka soo horeeyo 58 soo laabtay Allah u naxariistay taliyii uu horeeyo ciidanka cirka uu yeesho Axmed Sheekh Macow waxaa kaloo wadanka ku soo laabtay markaa oo joogay saraakiil xigeenno alifley iyo dabley lagu soo tababaray wadanka Talyaaniga oo aad u tarabadnaa oo ahaa raggii laf dhabarka u ahaa dhisidda ciidanka cirka ragga hadda ah rag badan baa nagala jooga qaarna waa nagala joogaan halka qaarna magaaladay joogaan in badan oo kamidana dibadda jiraan inna waa dhimatay Allah u naxariistaa leena ragga taariikhda soo dhisay oo ciidanka cirka kamid ka ahaa waxaa xushmad mudan in la xuso mudan taliyihii ciidanka cirka u horeeyay 11 bishii Oktoobar 1960 asaga iyo laba xidigle asagoo adhame iyo laba xidigle Cabdullaahi Cilmi oo duuliye ahaa Cabdullaahi Rooble oo farsamo yaqaan ahaa taliyaha iyo xaaskiisa iyo laba caruur oo dhalay halkaan ay diyaarad ka wadeen Hargeysa ka duuleen markay duuleen dad ugu dambeysay nolol raqi ruux meel jiraan laba yaqaan ayaga diyaaradana waxay u wadeen wadanka Talyaaniga in lagu soo sameeyo diyaarad la dhihi jiray
dakota 47 nooceeda ahaa laba matooreey ah ciidanka cirka asagoo curdan ah oo markaa dhashay agost 1960 markii Congo dagaalka ka dhacay oo ay isku qabsadeen Lumumba iyo Belgiumka wafdiga halka ka baxay oo hogaaminayay wasiir ku-xigeenkii arrimaha dibadda Maxamed Cali Daar oo kamid ahaa Nicolina Maxamed oo kamid ahaa ninkii hadda ku geeriyooday Hargeysa safiirkii ahaa la dhihi jiray Moscow ka ahaa Qaybe Ahmed Maxamed Qaybe saddexdaas ayagoo wada laba duuliye iyo saddex farsamo yaqaano halkay diyaarad DC-3 ka wadeen Congo geeyeen waa dalkii ugu horeeyay oo Afrikada madow ah oo diyaaradooda ku tagay ahaayeen waana kaga soo laabteen waxaa ku xigay 1963 aadan Cabdulle Cismaan Allah u naxariisto madaxweynihii u horeeyay Soomaaliya markii la aasaasay OAU Organization of African Union diyaaradooda ku tagay xooga dalka ciidanka cirka ay wadeen ayuu aad sabab ku tagay oo halka lagu soo dhaweeyay ciidanka cirka mar raba inaa taariikh dheer galo waqtigoo yar daraadiis oo madaxda ay leeyihiin muxuu ahaa shirar kale ciidanka cirka intii uu jiray wuxuu soo qabtay hawlo tiro badan 62 markii uu wadanka ku dhacay daadka ciidanka cirka dadkii ugu daadinaya raashinkay kamid ahaayeen dagaalkii 64 waa taad ogaadeen ka qayb galeen bilowtii labaad oo ciidanka cirka ka dhintay wuxuu ahaa daahir kulane wuxuu ku dhintay shinay muhadanay diyaarad kula dhacday asagoo u socda goobta dagaalka markuu halka ka baxay kadib matoorkii istaagay barxadda shinay muhadan buu ku dhintay waa taariikhda ay ku qoranta mana iloobi doono waxay kamid yihiin raggaas iyo ragga kale badan oo gadaashood dhintay waxay kamid yihiin raggaan maanta ubaxa dhigay waan ku xasuusanayna taaladaas mana iloobi doono waqti aan dheereenna ayagoo liiskooda qoran iyo masawirkooda waxaan ku soo dhajin doonaa looxa xusuusta ee ciidanka cirka Soomaaliya mudane wasiir taliye sareeyayaal iyo madaxda sharafta dhamaantiin waxaan rabaa inaan ku hadlo ku soo gabagabeeyo ciidanka cirka muddadii uu dhisnaa taariikhdiisa meeshii ugu sarreysay wuxuu gaaray 74 maanta ciidanka cirka wuxuu ka hooseeyaa levelkii uu joogay maalintii la aasaasay markii loo fiiriyo xagga tirada tayada iyo qalabka waayo maalinta waxaa joogay dhalinyaro Soomaaliyeed oo qiiramo wadaninimo leh oo doonaya iftiinka u soo ifaya inay meel ka gaaraan intoodii badanna waa ka gaareen intii kalena ayagoon ka gaarin baa Ilaahay oofsaday oo wadankoodii ugu xeereeyay ciidanka cirka Soomaaliyeed maanta wuxuu leeyahay ragga hortiina taagan iyo kuwa badan oo lamid ah ama wadanka ha joogaan ama dibadda ha jiraan ciidanka cirka maanta duuliyaashiisa injineeradiisa farsamo yaqaanadiisa badmaaxayaashiisa waa ka badan yihiin kuwii hore waana ka aqoon badan yihiin laakiin ma haystaan baalal ay ku duulaan haddii ay helaanna waxaan aaminsanahay inay ka soo dhalaali doonaan waajibaadkii loo unkay oo loo aasaasay looguna talagalay waxaan hubaa in madaxda qaranka oo ugu horeeya madaxweynaha iyo inta ka hooseysaba ay diyaar u yihiin in ciidanka cirka laga soo aaso meeshuu joogay dibna loo dhiso waxyaabaha ugu muhiimsanna la qabto mudane wasiir taliye iyo madaxda sharafta leh ciidanka cirka hadda markaanu ku soo noqono gadaal taariikhda u soo noqono muddo 8 bilood laga joogo ayaanu u howlgalnay inaan xeradan ku soo celino at least siday ahaa jirto waageeda hore inay xeran ciidan noqoto ee aynan noqonin xaafadaha kamid ah waxyaabaha aan ku guuleysanay kamid ah waxaa kale oo aan ku guuleysanay inaan helno meel aan fariisano oo xafiis ah oo ciidanka laga maamulo inkastoo markii horeba meel yar ay jirtay laakiin meel kaga haboon inaan sameysano waxaan u howlgalnay inaan xerada ka nadiifino dadkii rayidka ahaa iyo dadkii aan ku habooneen walow aan ka saaray dad badan oo ciidanka cirka sharaf ku lahaan jiray hase ahaatee ay u diiday nolosha ciidanka inay xerada sii deganaadaan mar haddii ay ama gaboobeen ama geeriyoodeen markaana ayna carruur agoona lahayn laakiin ma aha inaan nacnay ama aan ka tuuray ciidanka ama aan ka saaray ma aha laakiin waxay noqotay kuwa hadda jooga ee hortiina taagan iyo kuwa ka maqan inay bedelaan ayagii oo ay xerada degaan taasaan ugu talagalnay laakiin xasuustanada marna kama ka go'o doonaan hadda mustaqbalka waxaanu hiigsanaynaa inaanu ciidan cusub oo ciidan cireed
aan dhisno ma hubo inaanu gaari doonno wixii aan hore u gaaray laakiin kolleyba waxaanu ku rajo weynahay inaan soo noolayno dugsigii tababarka inaanu soo noolayno xeryihii xafiisyadii lagu shaqayn jiray inaanu dhisno haddaba aan bilownay meel baarkin ah oo diyaaradaha aan dhiganno ilaa 6 diyaaradood noo qaada ayaa hadda dhismaheedii socdaa way bilaabatay sabtigiisii hore inkastoo ay gaabinayso oo ay nimanka noo dhisayaan UN-ka ay yihiin ay la gaabinayaan laakiin waxaan ku rajo weynahay inaan meesha wixii la dhigi lahaana madaxda dawladda oo hadda wasiirka iyo taliye xoogga nagala joogaan inay u howlgeli doonaan annagu meeshii aan diyaarinayna laakiin wixii la dhigi lahay madaxda sare ka rabna iyagaan ka sugaynaa waxaan ku tala jiraa inaan dhalinyarada Soomaaliyeed u dirno waxbarasho dibadda ah waayo annaga markii aan imaanaynay raggii na barbaariyay waa ragga naga tagay annaguna raggaan markaan ka tagayno waa inaan u helnaa raggii annaga na bedeli lahaa wadana wasiir taliye madaxda sharafta leh waxaan ku soo gunaanadayaa iyo dhammaan marti sharafta leh waan uga mahadcelinayno inay nala joogaan oo meeshaan xafladda nala joogaan aan rajaynayno inay nala dhisaan ciidanka cirka oo ayagu ay nagala joogaan waxaan u sheegayaa madaxda nagala joogtay maraadka taliyihii ciidanka cirka hore oo aan hadda filaya inuu yahay wasiir dawlaha muxuu ahaa madaxtooyada inuu ahaa taliyihii ciidanka cirka oo halkaan loogu imaan jiray oo saaxiibka nala ahaan jiray halka nala joogay marka waanu ku rajo weynaa ayaga iyo kuwa kaleba inay nala dhis doonaan ciidanka cirka anigoo hadalkayga soo gabagabaynaya waxaan u hambaliyaynayaa saraakiil xigeenka alifleyda dableyda iyo xaasaskooda iyo carruurtooda ciidanka cirka Soomaaliyeed iyo dhammaan xoogga dalka Soomaaliyeed inay sanadkiisa kale ku gaaraan bashbash iyo barwaaqo ayagoo intaan ka fiican tayo ahaan tira ahaan iyo qalab ahaanba waxaana hubaa inaad noqon doontaan kuwii dhibadabada u aasi lahaa ciidanka cirka cusub sidii raggii naga horreeyo halyaayada ahaa ayagaba ay ugu aaseen waxaanu leeyahay ciidanka cirka Soomaaliyeed ha guuleysto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ha guuleysto badda Soomaaliyeed ha shaqeeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciidamada ayaa la sida ciidamada kale kooxaha bambeeyda muusikada wuxuuna burburka la qaybsaday dhammaan ciidamadii uu dalka u lahaa